soo dhawaada dhammaantiin maanta waxaynu ka hadli doonaa sida uu internetku u shaqeeyo markaad technology ku jirto marlayba waxaanad ka maarmayn inaad fahanto waxyaabahan aad isticmaalaysaa sida ay u shaqaynayaan marka waxa marlayba muhiim ah in aad isku daydo oo aad wax ka barato waxaanaad isticmaalaysaa suu u shaqaynaya marka maanta waxaynu kasoo bilaabi doonaa xagga u horeysa sida uu internetku u shaqeeyo markaad browserkaaga soo gasho ee aad domain ku qorto ilaa iyo intuu domainkaasi website-kii aad ugu tala gashay kuu soo dhigmayo ayaynu ka hadli doonaa sida uu u shaqeeyo tusaale ahaan maanta waxaad doonaysaa inaad wax baadho marka waxaad doonaysaa inaad booqato google.com marka google.com ayaad ku qoraysaa browserkaagii markaad intaa ku qorto tallaabooyin buu qaadayaa kombyuutarkaagu si uu kuugu soo dhigo google.com-kii aad u baahnayd ama website-kii kale aad gelaysayd u baahnayd marka tallaabada koowaad wuxuu qaadayaa in uu idhaahdo kombyuutarkaygan oo adresskiisu yahay ama meeshu ku nool yahay uu yahay for example aynu ka soo qaadno 10.20.20.5 oo kale aynu ka soo qaadno ayaa wuxuu doonayaa inuu ogaado marka kani waxa weeyaan waa sourcekii ama waa meeshii ay ka imanaysay dalabku wuxuu odhanayaa kanoo sourcekii ama dalabkii meeshuu ka imanayay ah ayaa wuxuu doonayaa google.com google waadaan qori kara wax.com oo wixii la doonaya marka wuxuu u dirayaa intaasoo package ah wuxuu u dirayaa routerkaaga yaree meelaha iyo modem baaba iminka isku jire routerka iyo modemka yaray idii keenaan qolada internetku kaasuu u dirayaa oo aan sawirays kaasuu u dirayaa router modem ayuu u dirayaa marka routerkii modemkii wuxuu odhanayaa aye waxaan helay package ama bushqad laysoo dhiibay oo aan u geynayo ISP-ga wax kale maaha waa kambaniga kaa iibiyey internetka iminka inagoo kale soo gasho telesom kuwaasoo dhan waa ISP marka ISP-gii bay u imanaysaa oo ahaan doona ama soo gasho ama telesom ama somtel kuwa kalena iyagun bay hoos imaadaan baan u malaynaya marka kuwaas ayaa soo hoos geli doona oo u tegayaa bushqadaadii aad soo xidhay marka haddaan halkaa rikaab gareeyo ama aan ku celiyo bushqad ayaad markaad google.com ku qorto uu kombyuutarkaagu xidhayaa uu odhanayaa bushqadan ha laysoo ogaado waxaan uga baahanahay bushqadda maxaa ku yaala hadhow toole marka lasoo ogaado wixii loo baahnaa meeshii lagu soo hagaajinayay oo ah adiga kombyuutarkaagii marka kombyuutarkaagu browserkaagu u gudbinaya browserkuna wuu ku tusaya marka bushqadda maxaa la socda xaggii lagu soo hagaajinayay marka lasoo helo wixii laga dalbaday iyo wixii la dalbaday marka intaa la diro ee ay soo gaadho ISP-ga waxa haddaba ISP-gu odhanayaa waar haddaba anaa internetkii ku xidhane google.com garan maayo wuxuu yahay marka waxaan u baahanahay wax translate garaya marka wuxuu isticmaalayaa system la yidhaahdo DNS ama domain name system kaasoo ka caawinaya ISP-gaaga inuu yidhaahdo google.com wuxuu yahay ama uu ku yaala adresska IP adresskiisii buu soo siinaya marka for example waxa aad uga soo saad u fahanto DNS-ka waxaad ka soo qaadaa table 2 column ka kooban oo ah dhinacani ay ku qoran tahay magacyadii website-yadu google.com meta.com twitter.com tiktok.com youtube.com wixii oo dhan halkan saa u taxan yihiin xaggana ay ku taxan tahay adresyadoodii oo xaggaasaa laga helayaa kan 192 halkaasaa laga helayaa kan halkaasaa laga helayaa marka tablekaasi wax kale kama koobna wuxuu ka kooban yahay magac iyo adresku ku noolaa marka ISP-gu wuxuu isticmaalayaa tableka haddii uu ka helo tableka waa maasha allah
haddii kalena wuxuu ku oranayaa war waxaanaad sheegaysaa meesha kuma jiree nagala tag. Marka waxaa kugu soo noqonaya site is not available ama site ma jiro ayaa kugu soo noqonaysa. Marka DNS-kii markii uu ISP-gaagu soo helay meeshuu google.com kaga noolaa internetka oo for example ah 179.10.10.2 waxani maaha real IP addresses waa waxaan example idinku siinayo waad find out garayn kartaa real IP addresska Google haddaad doonayso. Marka uu haddaba soo helo meeshuu addresskan kaga nool yahay google.com internetka kaga nool yahay addresska uu soo helo, then wuxuu la hadlayaa serverkii google.com host garaynayay. Marka website kasta server baa ka dambeeya oo dadka soo dalbada u serve garay ama waxa ka dambeeya imika adoo kaloo soo galay hodheel. Marka hodheelka saa soo gasho kitchenka iyo adiga waxaa idii dhexeeya qof waiter ah. Marka applicationka google.com uu ku dhisan yahay iyo adiga oo wax ka doonaya applicationka waxaa idii dhexeynaya server, web server baa la yidhaha. Marka web serverku wax kale maaha waa waiterka qaadaya wax alla wixii dalabaad lahayd ee u geynaya kawaalista ku jira. Kawaalistuna uu soo samaynaya haddana uu kaaga soo qaadaya isagoo cuntadii kulul markaas kuu keenaya. Marka serverkii google.com buu la xiriirayaa ISP-gaagu wuxuu odhanayaa ninka halkaa fadhiya ama inanta halkaa fadhida ayaa kaa dalbatay waxa for example waxaad ku qortay Somaliland. Somaliland bay kaa soo dalbatay, Somaliland ma haysaa? Haa buu odhanayaa, wuu kuu soo bushqadaynayaa, wuu kuu soo dirayaa. Marka bushqadan imika waxa lagu soo hagaajinayaa adiga google.com kuma yaqaan. Waxa lagu soo hagaajinayaa bushqadan ISP-gaagii oo markii horeba dalbaday dee adiga isagoo ku matalaya ayuu dalbaday. Marka ISP-gaagii baa lagu soo hagaajinayaa. ISP-gaagii baa odhanaya haddaba xageebaan markii hore u dirayay oo aqalkaasaan u xiray beriga internetka halkaasaana laga soo dalbaday. Marka isaguna wuxuu ku soo hagaajinayaa routerkaagii ama modemkaagii isagoo sida dalabkaagii oo bushqadaysan. Routerkiina wuxuu odhanayaa haye computerkee iga dalbaday, mobilkee iga dalbaday, intan xaafadda wirelesska ku wada xidhan baa iga dalbaday. Already wuxuu haystaa bushqadii aad markii hore tiri xaggaa ku soo hagaaji. Simply kaagii buu ku soo celinayaa. Markuu kaagii ku soo celiyo computerkaagu browserkiisii ayuu ku soo xirayaa responsekii ama jawaabtii laguu soo diray dee adigaa google.com ku jira. Marka basically markaad yara wada eegto internetku guud ahaan saasuu u shaqeeya. Waa wax iska simple ah haddii aad fahanto oo aad maaragtay si deeply u sii gasho. Technicality badan baa intan waan idii kor maray laakiin technicality aad u badan ayaa hoosta kaga jirta oo waxaa soo hoosgelaya network ama NAT-kii, network address translationkii, IP addresskii, waa protocolskii ay waxani soo marayeen. Waxyaabahaasoo dhan waa wax aad diib u sii geli karto si aad u fahanto. Insha Allah waan ka samayn doonaa video kale topican. Maanta waxaan kusoo koobayaa intaa. Wixii aad comment hayso insha Allah igula soo wadaag commentka hoose. Haddii aad hayso waxyaabo feedback oo fiidiyoyada wanaajinaya igula wadaag iyaga laftooda commentka waan isku dayayaa inaan wanaajiyo insha Allah. Haddii aad garanayso qof ka faa'iidaya casharada noocan oo kale ah please la wadaag suu isaguna uga faa'iido channelkan. Waad mahadsantihiin.